ربنا نستعين على أمور الدنيا والدين إلهي بقى محمد سبحانه وتعالى. waxaan aad ugu mahadcelinaa wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan ugu mahadcelinaynaa qorshahan master plan-ka maanta halkan kaga dhawaaqi doono degmada Berbera. waxaa isku dayay 2015 ee wasaaradda howlaha guud u gudbisay miisaaniyadii 2016 baa lagu daray. hayeeshee iyadoo dalku baan u bislaanin amaana wasaaraddu iyadu laftigeedu diyaar u ahayn baan ku beeganay may suurtagelin. waxaan aad u diidnay qaabkii loo sameeyey ama loo diyaariyey, laakiin maanta waxaan aad ugu faraxsanahay iyadoo 5 gobol hore laga soo shaqeeyey oo goboladii ugu waaweynaa dalka in maanta Berbere waxaan aaminsanahay meesha ugu la difaran tahay. waxay dhammaan gobolada laga soo shaqeeyo oo ka duwan tahay dhulka waxa maamula dawladda. beertii awowgii iyo beertii ayadii midna maaha. guriga dhisana sharci ku dhisan yahay, dhulka baxsana sharci ku baxsan yahay. wixii dan guuda iyo wixii qorshe magaalana waxa loo marayaa nidaamka saxda ah. waxaan aad u soo dhaweynaynaa ku faraxsanahay maadaama magaaladu ay kobac horumarineed ka socdo oo horumarkeedu sanad walba in ka sii laabalaamay intii hore in magaaladuna ay qorsheeda yeelato waa laga maarmaan. sidaa awgeed waxaan soo dhaweynaynaa wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta wasiirka ugu horeeyo miisaaniyadda 2023 haddii Ilaahayna gaarsiiyo ayaa golaha deegaanka ku dari doonaan oo ansixin doonaan. fulinteedana bisha 10aad baa la geli doonaa. intan hore banaynu qaban doono wixii bari ka bilaababa wasaaraddu bilaabi doonto. waxaa sii hogaamin doonaa wasaaradda dowladda hoose. dhammaan wixii shaqo laga qabanayo iyo wixii maaliyad ku baxaya waxa ka bixi doona gacanta dowladda hoose degmada Berbera ay ka bixi doonaan. insha Allah waxaan rajaynaynaa master plan-ku waxa weeyaan dadku qaar baa u yaqaanaan wada dheer oo la jiidayo inuu dadka lagu dhex talaabiyo u yaqaanaan maaha. waa hanti dhowrka dhulka weeyaan inuu kala xaqiijiyo hadhowtan raac loo helo qorshaha magaalada eriyada loogu talagalay waxaa in laga dhigo waxaas ma laga dhigi karaa. halkan aniga iskale oo guri laba maqsinaan ka dhisayaa kama shaqeynayso. halkan aniga iskale waxaan garbaan ka dhisanayaa, bakhaar baan ka dhisanayaa. waan ognahay maantaba waan garan karaynaa dhibaatada inaga haysata. waxaa jaara bakhaarkii raashinka lagu rogayay iyo qofkii gurigu seexanayay baa jaara. waxaa jaara mashiinkii generatorkii istaarnaa ee guuxayay iyo halka qofkii seexanayay baa jaara. waa laba qof oo isku dhiban wey. waa qof muwaadina oo ku dhiban qof kale ganacsadaa shaqadiisa ku dhiban. jiir baa ka imanaya, duqsi baa ka imanaya, baranbaraa ka imanaysa. bakhaaradan guriga la jaarka uu ku dhibay ku kadeedayahay wadooyinkii magaalada xidhayaan. marka waa in qorshaha magaaladu saas uu kala qayaxmaya meelaha degsiimada ee dadku deegi karaan. waliba degsiimadii baa sii kala xadeysan. meelaha hudheelada weyn laga dhisi karo, meelaha fooqa laga dhisi karo, meelaha guryaha gaagaaban laga dhisi karo, meelaha warshadaha laga dhigayo, meelaha bakhaarada laga dhigayo iyo goobaha dalxiiska intaba waa la kala cayimi doonaa insha Allah. sameyntiisa waxa ka adag ilaalintiisa hubaan waxay tahay waa la sameyn karaa, qorshana waa la dejin karaa, qoraalna waa laga soo saari karaa. waxaase ka adag in mas'uuliyiinta xilka gacanta ku haya iyo kuwa ku qaban doonaaba ay ilaaliyaan. sidaas uu master plan ku guuleysanaya in qorshaha loo dhigay lagu gaargareeyo lagu ilaaliyo. mar labaad iyo saddexaad waxaan mahadnaqayaa wasaaradda oo halkan uu hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta sida xildhibaan Rashiid oo gudoomiyaha gudoosaadka howlaha guud ee degmada ah uu sheegay. gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa, qalbi furan baan ku soo dhaweynaynaa. waa siin garab taagana waa ila shaqeynaynaa. aad iyo aad baa mahadsantiin. waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha gobolka.